حرية دوبة هلا ما هاد سكالة أنا جو فرحسن عاوة أنا جو حرة أنا جو نحبس كجرين بس كحد تام تاي الحمد لله رب العالمين مركل بعد وحنا مهد قلنا يا لما تذكي كقيب قاتين اللي سود دايو يجوه الريان فاميل كيجا iyo asxaabtii kale ay qayb ka ahaayeen xasan maalin oo runtii nin dhalinyaro ah oo saaxiibanaya oo asaga laftirkiisu maalintii beejkan la xiri doono ka hor aan maartay qoraal aan u qalmin oo asaga laftirkiisa aan u fiicnayn aan halkan ka soo dhigay oo maartay saaxiibkeena si live aan uga raali gelinayo qaybna ka maanta in la soo daayo waxaa kaloo aan rabaa inaan xaggan uga mahad celiyo dhammaan saaxiibadii kale oo nimcaan ay ku kaayeen iyo maxkamadda gobolka banaadir gudoomiyaha maxkamadda runtii iyo dhammaan dadkii ilaalay maxaa dhahay dacwadii iyo maxaa dhahay wixii sharcigii ma garanaysaa wixii la haystay marka walaalayaal dhammaantiin sidaad ogtihiin qofku wuxuu dadka kala bartaa markay dhibaato kula soo daristo markii aad xaalad dareento ayaad maarta wax walba kala ogaanaysaa alxamdulilah maanta waxaan ogaaday dadka cadowgayga dadka kale dadka beenta ii sheego dadka ii qoslo dadka maaragtay laakiin aan horumarkayga iyo maxaa dhahay wanaagayga aan rabin balse jecel inay markasta god igu ridaan dadkaas ayaan runtii kala bartay fanaaniin soomaaliyeed shacab soomaaliyeed ayaa ii soo duceeyey ayaa maaragtay ilaahay ii baryey inuu ilaahay xabsiga soo daayo kuwaasoo maaragtay ilaahay uu ka maaragtay ducadooda uu ii aqbalay alxamdulilah ayaan leeyahay waxaan rabaa inaan idinka sheekeeyo wixii iigu daraa xabsiga aan kusoo arkay wixii iigu la yaabka badnaa xabsiga kusoo arkay dhibaatadii ugu weyneyd oo maaragtay aan xabsiga kusoo arkay anigoo hadda faraxsan caawa oo dareemaya inaan dhibtaa ka soo baxay sidaa hadda aad wada dareemaysaan codkayga uu xidhan yahay codkii aad igu ogeydeen maaha codkaas wuxuu ii xidhmay waxa weeyaan dhibaatadii aan xabsiga kala kulmay nadaafad darradii haddii ahaan lahayd cunto xumadii iyo maxaa dhahay waxyaabihii kala duwanaa aan meesha kusoo arkay runtii anigoo ka fikiraya ammaankayga iyo xaaladahayga gaarka ma doonayo waxyaabo badan oo negative inaan sheego laakiin wax yar baan ka dulmaraya waxa weeyaan sidaad wada ogtihiin oon horeyna idinku sheegay aniga kiiska wuu ka madax bannaan yahay wax hadda youtube-ka iyo facebooka la wareejinayo oo ah inaan shabaabnimo iyo wax lamid aan ku xidhanahay waxaan idiin sheegay arrintaas inayna sal iyo been inayna raad sal iyo raad toona ayna lahayn aniga aan qofkaa taqaana inaan ahay meesha aan ka imid iyo cid kastoon ahay backgroundkayga dhanna la wada ogyahay oonan anigu waxaasaana ku lug lahayn taasina ay keentay in si fudud oo alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan aan maanta xorriyaddeeda ku helo habeenkii isniinta ahayd ayaa waxaa laga soo wacay degmada saldhigga ugu badneyd oo maxaa la ugu xumeed meeshaan kala kulmay waxaa iga raalli ahaada saldhigga degmada hodan ayaan dhibaatadii ugu xumeed kala kulmay wallaahi been ma idiin sheegaaye waxba idinkama qaran ummadda soomaaliyeed dhididkii aniga iga baxay shamiitada intuu ka qulqulay wuxuu u baxay ilaa banaanku qulqulayay runtii oo banaanka biyo caadi ah subxi ayuu ahaa oo xabsiga ma garanaysaa qolka igu xidheen balanta markii hore degmada ay ii yeereyseen waxay ahayn anaga dacwadaasaa noo timid waxaan rabnaa inaan dadkaas runtii mana ka filinay runtii in sidaas degmada la igula dhaqmo oo sidaas sidii qof soo dilo oo kale la ila dhaqmo degmada runtii ma jeclaysanin waa dadkayga walaalahay aad bay si xun bay maaragtay oonan jeclaysano qof muaadin soomaaliyeed aan loola dhaqmin bay ila dhaqmeen xataa waxaan ku yihi biyaan ku tukada ii keena wallahi ma ii keenin biyaan ku tukada xataa way ii diideen habeenkii 2 saac meeshaan istaagay saldhigga qol madow oo maxaa la dad lagu xidhxidhi jiray oo waxa yaala qashinka iyo bahla galeenka waxa yaala aadan malaysan karaynin baa runtii waa la igu soo xareeyey salaadeed waan iska niistay alxamdulilah iska tukanayay waxaa iswadaba waagiwa ay bariyey runtii aad bay maaragtay ii dhiftay arrintaas oo sida hadda dhafoorkayga ama duujiyay ka dareemi kartaan in dhibaato badan maaragtay iyo oo arrimo badan runtii inaa wejigayga waad u wada jeedaan qofkaad wejigiisa taqina inaan ahayn runtii xabsiga dhexe caadi buu iska ahaa xabsiga dhexe ayaan ku xirnaa sidaad ogtihiin oo gaal shiro xaggaasaan ku xirnaa
aad bay ii soo dhaweeyeen maxaabiista runtii si fiican bay meeshaas waxaa weeyaan ciyaalkii maxaabiista way soo dhaweeyeen meesha waxaan ugu tegay niman wax walba la socda waxaan dhahaye adigana ma noo timid soo dhawow caruuska soo dhaweey waa kuu sacabinayaan maxaabiista niman fani ah weeyaan soo dhawow way sacbiyeen si fiican bay ii soo dhaweeyeen marka ciqaabta iyo maaragtay qof maxbuusa wixii la marsiinin baa la imarsiiyey qof fanaana iyo qof xasaanad iyo qof shaqaal sina waxaas la ilama dhaqmin laakiin midda aan marnaba iloobayn waxa weeyaan degmada waan ii sheegaya degmada hodan wallaahi bilaahi tallaahi hadda markaan soo maray alaab baa iga tiilay been madish waan is celinayaa xataa markaan galay dadka kasoo baxa waan nacay ma arki karo wallaahi waan dhibsanayay yacni waad dareemi kartaa meel qof lagugu ciqaabay oo aada lagugu dhibaateeyey waad dareemi kartaa xanuunka iyo dhibaatada ay leedahay subaxii xitaa markii anoo gacmaha ka xidhan lasoo bixiyey taliyaha degmada wuu joogay wuu canaantay xitaa nimankii wuxuu yihi ka furo fanaanka katiinada maxaad